أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة iyo Siciid Cabdulaahi Dani waxa ay muddo isbuuciyo ah dalbanayeen in la qabto shir looga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Siciid Dani waxa uu xilli hore iska diiday in kulankaas ay martigeliso Garowe oo ah caasimadda hooyada Puntland sida ay dadku u yaqaanaan. sababta waxa uu ku sheegay xilligaasi ceebsi ay ka qabeen ciidamada Haramcad iyo Gorgor isagoo u muuqda in uu wareeriso ku jeedinayo marxaladda siyaasadeed ee xilligaasi taagnayd kasokow in labada maamul hanaanka awood qaybsiga beeruhu mideeyo haddana lugta si weyn ayay isugu xirteen ilaa markii la doortay Siciid Dani sanadkii 2019 xilligaas oo dagaal ka soo bilowday taageerid la'aantii fiila Soomaaliya ee musharaxnimadiisa Dani uu qabay iyo Axmed Madoobe oo isna kursiga maalmahaas uu ka sii dhamaanayay labada xubnood waxa ay saaxiib iyo wadaay siyaasadeed ka dhigtay marxaladda jacaylka kursiga taasoo aan wax badan ka duwanayn tan maanta ay kula dagaalamayaan farmaajo oo isna kursiga macaankiisa doonaya inuu mar kale ku laabto waxaana adkaatay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka la xiriira iyo siyaasadda Soomaaliya kama hadlayno geedi socodka dheer ee dagaalka xubnahan balse aan ku soo degdegnee ku dhawaad 14 maalmood ayay labada madaxweyne goboleed ku sugan yihiin Muqdisho ujeedada imaanshahooda waxa ay ku sheegeen inay tahay sidii mar looga dhigi lahaa turxaan bixinta arrimaha doorashooyinka waxayse marnaba afkooda ka dhowreen isafgaradkii Baydhabo ee ay wasiiradu saxiixeen sida uu qiray madaxweyne Dani waxa ay ku tageen Muqdisho dalab uga yimid wakiilada caalamiga ah gaar ahaan labada xubnood ee ka soo jeeda Mareykanka James Wan oo matalaya bulshada jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Donald Yamamoto oo matalaya Mareykanka cagaha weyn marar badan ayay labada madaxweyne sheegeen inay cabsi amnigoodii jirto madaxweyne Dani shalay waxa uu sheegay in la soo weeraray oo uu halis ammaan darro dareemayo haddana ma jiraan cid xaqiijin karta ilaa hadda walwalka madaxdan ka haysta xagga amniga ila xoogaalihi waxay cadeynayaan arrinta ku saabsan cabsida amni ee ay muujinayaan Puntland iyo Jubbaland ku celcelinteedu ay doonayaan in run uga dhigaan beesha caalamka una muujiyaan caalamka in farmaajo doonaya soo laabashada dawladdii kacaanka oo kale laakiin dadka siyaasadda darsa waxa ay rumaysan yihiin beesha caalamku ay uga ogaal iyo xogroon tahay Soomaalida waxyaabaha qarsoon ee socda 45 cisho ka hor labada maamul waxa ay soo qadimeen shuruudo ay ka mid yihiin shirka lagu qabto xalane in amniga goobta shirka lagu wareejiyo Amisom in midowga musharaxiinta qayb laga siiyo kulamada siyaasadda iyo qodobka ugu xasaasisan oo ah in farmaajo laga reebo tartanka doorashada ilaa arrimaha doorashooyinka uusan qayb ka noqon kadib shuruudaha waxa xigay hadal jeedintii naadirka ahayd ee masraxa siyaasadda Soomaalida taasoo uu jeediyay madaxweyne Dani waxay u muuqatay mid abuuri kartay foolkaano weyn oo siyaasadeed oo xagga kicinta qabiilka aad loo adeegsado dadka aad uga faallooday khudbadaasi waxay ku sifeeyeen abuurid dagaal la sokeeye iyo raadinta jaanis siyaasadeed oo uu ka dhaxarka xilligaas inuu noqon karo madaxweyne ku meel gaar ah hase yeeshee ay noqotay hal bacaad lagu lisay markii ay dhammaan shaqayn weeyeen beesha caalamka iyo fiila Soomaaliya maalmo dheer oo wada hadalla kadib waxa ay isku raaceen meel marinta 5 ka mid ah shuruudihii ay soo jeediyeen labada maamul waatan koobaad in farmaajo taga xalane halkaana lagu qabto shirka saxiixda heshiiska doorasho in ammaanka goobta ay sugaan ciidanka Amisom in deegaanka madaxdu degayaan uu noqdo mid ku dhex yaala garoonka Muqdisho saameynna aysan ku lahayn dawladda federaalka iyo hay'adaheeda amnigu in mucaaradku ay yeeshaan ka qaybgalka doorka ku wajahan dhamaystirka shirka doorashooyinka iyo qodobka shanaad oo ah in 2 maalmood laga dhigo jadwalka shirka shantaasi qodob fiila Soomaaliya waxa ay ku ahaayeen 5 qodob oo waaweyn waxayse ugu muuqdeen beesha caalamka kuwa ay ku soo afjari karto tabashadii maamuladan ay qabeen balse xaajada oo dhan ayaa isbedeshay wixii ka dambeeyay markii Madoobe iyo Dani ay Muqdisho qayb kaga noqdeen madasha badbaado qaran oo ka soo xuubsiibatay kudladii la asaasay sanadkii 2017 ee mucaaradka oo dhowr magac soo martay falanqeeyaasha siyaasaddu waxa ay rumaysan yihiin in Siciid Dani iyo Axmed Madoobe halis weyn ay u arkaan in xilligan Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sababta ugu weyn waa kuraastooda oo ay dareensan yihiin inay ku soo wajahan yihiin duufaanno culus oo siyaasadeed saaxiibada dhow ee madaxweyne Dani
waxa ay sheegayaan in bilowgii bilaabashada ka wada hadalka doorashooyinka uu ku jiray han siyaasadeed oo ah inuu isu soo taagajaga madaxweynenimada Soomaaliya balse qiimeyn iyo jawaab celin uga timid saaxiibadiisa Carbeed uu dareemay walaac xoog leh sidaa oo kalena safarkiisii Oktoobar ee Imaaraadku uu ahaa mid laha hurgumooyin waaweyn oo siyaasadeed labada maamulba waxa ay dagaal adag la soo galeen 3 sano ee la soo dhaafay madaxweynaha hadda waqti uu ka dhamaaday ee dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda la rumaysan yahay mar kale inuu yahay musharax madaxweyne labada maamulna u arkaan inaysan haynin cid laga horgeyn karo waqtigan dani oo dhawaan kula hoosaad la yeelanaya qaar ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadda waxna la isaga weydiiyay cidda ay Puntland garab istaagi karto marka la joogo fagaaraha doorashooyinka waxa uu si maldahan ugu sheegay kooxdiisu inaysan jirin cid hadda la tartami karta Farmaajo sidaas awgeedna ay tahay in waqtiga la dheereeyo si ugu yaraan dhiigbax siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ugu yimaado kooxda fiila Soomaaliya doorashadana loo aado ugu yaraan kooxda oo dhaawac culus uu soo gaaray Axmed Madoobe waxa uu rumaysan yahay in soo bixidda Farmaajo ay ku tahay halista ugu weyn ee xukunkiisa labadii sano ee uu Farmaajo u ansixiyayna ay ku eg tahay bisha nugu soo wajahan ee Agoosto haddii ka hor doorashada la qabto oo uu soo laabto Farmaajo oo wajahaya dagaal ka xun midka waqtigan taagan qaar ka mid ah la taliyaasha dhow ee labada madaxweyne goboleed waxa ay qirayaan inay ka midaysan yihiin Farmaajo oo ka hara tartanka doorashada cadeeyana inuusan ahayn musharax madaxweyne oo kaliya lagu aadi karo doorasho ayna maamuladan qayb kaga noqon karaan ama ugu yaraan Farmaajo oo cadeeyo inuu faraha kala baxay maamulidda howlaha doorashooyinka tan dambe ma aaminayaan labada maamul ayay leeyihiin dadka sida dhow arrinta ula socda taageerayaasha madaxdan waxay aad ugu doodayaan garaacidda kataarka qabiilka oo hadda ay cadaatay in Soomaalidu ay ka soo gudubtay tusaalaha nool ee taaganna uu yahay Farmaajo Madoobe iyo Dani inay ka soo wada jeedaan hal beel oo ka mid ah awood qaybsiga beelaysan ee Soomaalida oo hadda sii dhimanaya dhinaca kale labada maamul ma hayaan farsamo siyaasadeed oo Farmaajo lagula dagaalamo lagu qabto doorasho degdegsan iyo mid dhaqaale oo ay ku dhisi karaan siyaasi kale oo ay u arkaan inuu ka guulaysan karo siyaasiga ay hayaan taas beddelkeeda waxa ay jahawareer siyaasadeed ka qaadeen kala doorashada siyaasiyiin badan oo xidhan u soo qabtay horay in Farmaajo ka hara tartanka doorashadu waa arrin aan sahlanayn oo aysan ka shaqayn karin wakiilada caalamiga ah waqtigan sidaas oo kale waa xuquuq dastuuriya ayay leeyihiin sharci yaqaanada oo uu leeyahay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ahna in la doorto ama uu wax doorto isweydiinta soo degdegaysa ee waqtigan taagan waa madaxda Puntland iyo Jubbaland ma doorasho khasban ayay aqbali doonaan mise Farmaajo ayay xukunka u sii dheerayn doonaan maalmaha uu xukunka sii joogayo taasi waa su'aasha ay kala cadayn doonto maalmaha soo socda iyo waqtiga waayaha ay ka shaqeynayaan labada madaxweyne